أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي mahadiis waa marka hadu kusoo laabanay anagu wanaag isxasuusinayna xubin iska reebayna. طبعا waxaan oo socotay silsilo aan kaga hadlaynay fahamka saxa ah diinta islaamka loo fahmo macnaheedu ay tahay diinta islaamka in aan la kala googoosan karin oo qayb meel looga dhaqmo qaybta kale aan laga tagi karin. waxaan dhowr jeer aan ka hadalnay xalaqooyinka fahamka shacbiga ama ummadda ama mas'uuliyiintaba halaha ay meesha kaga jiraan tadayunka maqshuushka ah ama qashka kaga jira. bal waxaa badanaysa waxaa arkaysaa mas-uuliyadda haday dayacanto oo qofkii mas-uul loo dhiibay oo mas-uuliyadda dayaco waxaa imaanaysa in uu biri ilaahi subxaana wa tacaala oo halkaas fitan ay ka ratibmaan oo ummaddii ay balaayo iyo dhib ay timaado. waxaan la soconnaa maalmahan mas-uuliyadda inay dayacanto ummadda Soomaaliyeed, balse waxaa la yaab leh dad salaad tukado oo soomo ayaa u sacbinaya dadkaas mas-uuliyiinta ah oo aan xilkooda gudan waayey. markhaati ay ka naqanayaan qiyaamaha waxyaabaha ay ugu sacbinayaan dadka. qaraxyo ayaa dhacaya, dhiig muslim ayaa la daadinayaa, dad muslim oo beri ah ayaa la dilayaa, haddana qof lagula xisaabtamayo mas-uuliyaddaas ma arkaysid. waxaa la yaabaa marka dadkan banaanka jooga oo facebookyada leh oo dhiigga muslimka xataa qabiil iyo taageernimada qabiil ay taageerayeen iyo dantooda gaarka iyo sandareerta yaroo la siiyey, lacag yaroo la siiyey, inay dhiigga muslimka ah arrintiisa ay ka hadlaynin. nacam, qaraxii hadda dhacay dad beri ayaa ku dhintay, dad mas-uuliyiin ku dhinteen. haddana waxaad moodaa dhiigga muslimka inuu hadar iska yahay, yaa lagala xisaabtamaya. annagas haddaan ka aamusno dhiiggaas aan shibkan aan yidhaaho iska daaya, yaa dad la xisaabtamin. nacam, dadka dilay ama oo dilka sheegtay daliil uma hayaan qof muslim ay beri ay dilaan. dhiigga muslimka ah nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu laa yazaalu almu'minu fi fusxatin fi diinihi, qofka wuxuu yidhi diintiisa fasaxo kaga jiraa ilaa markuu dhiig galo. markaas wuxuu leeyahay ilaahi subxana wa tacaala dhiiggaas hadarka ama ah kacbada iyo la dumayaa kaga sahlan agtiisa ilaahi subxaana wa tacaala. laakiin kelmadeedu waxay ku wajahantaha shacbiga oo loo kala qaybiyey, taageero loo kala qaybiyey, oo mucaarad iyo wax loo kala qaybiyey iyo muxaafid, oo aan dunuubta oo dhacaysa waddanka ka dhacaysa ma laha mucaarad iyo ma laha iyo muxaafid ma laha. dembigaa dhacay, dembigaas waa dad lagula xisaabtamaa. qaacidaa jirto fiqi asaasi ah oo dhahayso damu lmu'min laa yakuunu hadaran, dhiigga mu'minka hadar ma naqanayo wax la iska ilaabo. xataa haddii ay ilaawdaan ilaahi subxana wa tacaala beri annaga dhanuna qabanaya, ciddii ka aamustay, ciddii kaalmaysay, ciddii ku faraxday, kullu dembiga mushtaraga ku naqanaynaa. waxaan ula jeeda halkaa markii halkaa camalo dhiig ay timaado, masalada dhiig ay timaado oo dad la laaynayo, mas-uuliyaddeeda waa inay dowladda ay qaadaa. Soomaaliya haddaan nahan annaga qabiilka ayaa naga adkaaday. dowladda markaan leeyahay shaksi ulama jeedo. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay madaxweynaha kaliya ataagaan, waa ra-iisul wasaaraha ku jiro, waa tiimkan o dhan, tiimka waddanka maamula dunuubta ay galeen dadka ku ayidayo oo taageerayo oo dhahaya balse raba inay mar labaad noo soo noqdaan. xaq haddaan rabno inay noo soo noqdaan ma aha. tiim aan ka hadlaynaa. dhibkeenna wuxuu ka bilowda markaa tiim ahaan ula xisaabtano. ilan iga xukunka hay macal wasiirkooda, agaasimahooda guud, waa tiim oo qalad wada gala wey, oo ummadda maanta dhibkeeda aan ka hadlaynin. bal qaraxaa dhacay, qof looma casilo, intaasoo qaraxa waddanka ka dhacday, waxyaabahan ku aragnaa wey. qof looma casilayo, wasiir amni lama ciqaabayo, wasiir kii booliska xukumayo lama ciqaabayo, qad loo qabanayo malaha, kaanaha maruur kiraam dadku ay iska marayaan. walidaalika qofka waxaa layidhi qalbiga markuu macsida ay ka badato waa cabayaa. wuxuu yidhi tucradu fitna cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuudan u nabiga calayhi salatu wasalaam. war dil baa dhacay, waxaan isku mashquulinaa yaa dilay, maxaa loo dilay, war dilka maxaa loo dilay, taas hay-adaa ayaa baaraya, cidday ka dambayso cid loo saaranayo ma laha. laakiin mas-uuliyaddeeda soo dadka hadda xukunka hayso ma annaga ummadda yaa u dhiibata wax, yaa sii jooga xukunka ilaa doorasho kale ka dhacaysa yaa haya, mas-uuliyiina haysa. mas-uuliyiintaas marka hadday dad ciqaabaynin, ay diinka muslimka iska saarsanayso oo shacabka iska aamusan yihiin, waa musiibo wey. walidaalika waa ilaahay subxana wa tacaala inaan xasuusina. waxaa laga yaaba muslimiinta salaaday tukadaan,
soonaytu way soomaan sadaqa ay la baxaan laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu weydiinayaa cumar wuxuu leeyahay baqara ku dhuntay baladka ciraaq ku kuftay ayaa jidka maxaa ugu wanaajin weysa laleeyahay dhiigaa daatay lilasaf dad muslimiin kule facebook iyo meelaha ka hadla waxaan ku aragnay waxay ku leeyihiin dad badan la dili jiray gabaraa dhimatay war qatlu nisaa dumarka iyo caruurta xataa jihaadka lama dilo jihaadka jihaad oo dad cadow iska soo horjeedno oo la halayo wuxuu nabiga calayhi salaam dadka shuyuukhda duqowda iyo dumarka